وعن daawadayaal meel walba caalamka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena wararka isha sirdoonka oo aanu maanta ku faaqidi doono wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan Soomaalida iyo caalamkaba. Dawladda dalka Turkiga ayaa waxa ay Imaaraadka ku eedeysay taageerada ururka Al-Shabaab. Xildhibaan ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dalka Talyaaniga oo weerar ku qaaday Silvia Romano. Afhayeenka madaxweynaha dalka Ruushka oo laga helay cudurka coronavirus iyo Soomaaliya oo bixinaysa shatiyada xirmooyinka shidaalka ee ceegaaga biyaha Soomaaliya. daawadayaal qodobada iyo kuwa kale aad ku daawan doontaan barnaamijkeena wararka isha sirdoonka. Soomaaliya oo si rasmi ah u bilowday bixinta shatiyada xirmooyinka shidaalka. Dawladda Federaalka Soomaaliya ayaa si toos ah u bilaabaysa tartanka loo gelayo bixinta shatiyada xirmooyinka shidaalkeeda ku jira xeebaha badweynta Hindiya ee Soomaaliya. Sida uu bartiisa Twitter-ka ku baahiyay wasiir ku-xigeenka batroolka Soomaaliya Maxamuud Cabdiqaadir Hilaal, waxaa maanta si rasmi ah u bilowday bixinta shatiyada ilaa 7 baloog oo ku kala yaala 4 maamul goboleed oo kala ah Galmudug, Hiirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. wuxuuna tirsigoodu kala yahay 52 baloog 153 baloog 164 baloog 165 iyo balooga 177 balooga 178 iyo balooga 204. balogyadan ama xirmooyinkan la waafajinaya xeerka batroolka Soomaaliya ayaa waxaa doonaya ilaa 130 maalgashidaal caalami ah iyadoo ay bixinta shatiyadu soconayso bisha Maarso ee sanadka 2021. haddii aanu sii cayino sida ay maamul goboleedyadu u kala leeyihiin balogyadan shatiyada la bixinayo ee waxay u dhacaysaa sida tan: Galmudug waxay helaysaa balooga 152 iyo 153. Hiirshabeelle waxay helaysaa balooga 164 iyo balooga 165. Koonfur Galbeed waa balooga 177 iyo 178, halka Jubbaland ay tahay balooga 204. Soomaaliya ayaa doonaysa in ay shati bixinta wajiga hore ku bilowdo ilaa 15 baloog ama 15 xirmo badeed oo ay ceegaagto saliid lagu qiyaasay 30 bilyan oo fuusto oo shidaal ah. bishii November ayaa waxa uu sheegay wasiirka shidaalka ee kheyraadka dabiiciga ee Jamhuuriyadda Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed oo la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters mar uu ka qayb galayay shirka Afrika ee saliidda iyo kheyraadka oo ka dhacayay magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika in ay bixinayaan 15 xirmo oo shidaal ah. iminkana wararkeena kale ay noo haray. Turkiga oo Imaaraadka ku eedeeyay in uu qas ka wado dalal ay ku jirto Soomaaliya. dawladda Turkiga ayaa mar kale wuxuu haatan Imaaraadka ku eedeeyay in ay bariga dhexe ka wadaan qas iyo qalalaaso, isagoona ku eedeeyay in ay faragelin ku hayso dalalka Yemen, Liibiya iyo Soomaaliya. wasiirka arrimaha dibadda dalka Turkiga Jawish Oglu ayaa wuxuu isaguna ka jawaabay eed loo jeediyay dalka Turkiga laftiisa oo lagu eedeeyay faragelinta Liibiya. ayaa waxa uu sheegay in Imaaraadka iyo Masar ay yihiin ee loo soo diray iyagoo ku lug leh taageerada Khalifa al-Haftar ee Liibiya oo ay taageerayaan hogaamiyaha afgambidoonka ah. waxa uu si qaas ah farta ugu fiiqay dalka Imaaraadka. haddii aad i weydiiso yaa gobolka qasaya yaa fawda ka wada, waxaan dhihi lahaa Abu Dhabi anigoo aan ka labalabaynaynin, ayuu hadalkiisa raaciyay. wasiirka ayaa sidoo kale Imaaraadka ku eedeeyay in ay taageeraan kooxda xagjirka ah ee Al-Shabaab ee Soomaaliya, halkaasoo uu Turkigu ku leeyahay saldhig uu ku tababaro ciidamada Soomaaliya. xiriirka Ankara iyo Abu Dhabi ayaan qorxoonayn tan iyo sanadkii 2017 markii Sacuudiga, Imaaraadka iyo dalal kale ay xiriirka u jareen dawladda Qatar oo uu Turkigu u soo gurmaday. Imaaraadka ayaa sidoo kale ka mid ah gaashaanbuurta Carbeed ee dagaalada lagu hoobtay isla markaana aad loogu burburiyay dalka Yemen ka wada. iminkana Talyaaniga. arrinta Silvia Romano oo dhawaan dib ugu laabatay dalka Talyaaniga ayaa waxa ay gilgishay baarlamaanka dalkaasi. siyaasiga Alessandro Pagano oo ka tirsan xisbiga midigta fog ee cunsuriga ah ee Lega Nord ayaa Aisha Romano ku tilmaamay argagixiso cusub, walow ay markii dambe warkiisa ka jawaabtay Maria Rosario oo ah madaxweyne xigeenka aqalka hoose ee Talyaaniga. Pagano oo ka hadlayay ajenda ku saabsan COVID-19 oo la doonayay ayaa sheegay in askar boolis ah oo cudurkan u dhintay uusan ka qayb galin xitaa hal qof oo dawladda ka socday, isagoo oo yiri waxa ay soo dhaweeyeen argagixiso cusub ee soo laabatay. waxaa kadib arintaa cabasho ka muujiyay dhowr xildhibaan oo aqalka fadhiyay, waxayna ugu baaqeen inuu hadalkaasi joojiyo. waxaa ka daba qaatay xildhibaan Emmanuel Fiano oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ee liberaalka, kaas oo Mr. Pagano ku tilmaamay mid aan la aqbali karin iyo in qofku aqalka u adeegsado
madal uu ugu gefo qof 18 bilood maxbuus ahaa marka la eego xeerarka dambiyada dalkaasi Talyaaniga. Gudoomiye ku-xigeenka oo warka ku soo noqotay ayaa sheegtay in ay durba joojisay warka Pagano oo ay runtahay in aan la aqbali karin oo uu mas'uuliyadiisa isagu qaadanayo. Elena Grandi oo kamid ah hafayeenka xisbiga cagaaran oo ay weheliyaan Laura Russo iyo Silvana Meli ayaa iyaguna ku baaqay in uu iscasilo Pagano oo ay ku eedeeyeen in uu dumarka liidayo. Arrinta caashe Silvia ayaa muran hadda maraya halka ugu sareysa ee looga arrimiyo talada dalka Talyaaniga ka dhalisay, taas oo aad moodo in saxaafadda iyo siyaasiyiinta Talyaaniguba ay ka mashquuleen la dagaalankii cudurka coronavirus. Iminkana dalka Ruushka, afayeenka madaxweynaha dalkaasi Russia Vladimir Putin ayaa waxaa laga helay cudurka coronavirus. Dowladda Ruushka ayaa xaqiijisay in tirada dadka uu soo ritay cudurka coronavirus ay gaartay 232,000 oo ruux, iyadoo uu noqday dalka Ruushka dalka labaad ee ugu badan ee cudurka coronavirus uu saameeyay. 24 saac ee ugu dambeysay ayaa dadka laga helay cudurka coronavirus gudaha dalkaasi Russia waxa ay gaartay 10,899 ruux, waxaana ka mid ah dadkaasi afayeenka madaxweynaha Ruushka Dmitry Peskov. hase yeeshee tirada dadka uu dhintay cudurkan coronavirus gudaha dalka Ruushka ayaa waxa ay maraysaa 2,116 ruux. Mr. Peskov ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee taas ee dalka Ruushka in markii ugu dambeysay ee shakhsi ahaan ay kulmaan madaxweynaha Ruushka ay ahayd bil ka hor. Afayeenka ayaa isbitaalka la siixiyay isagoona warbaahinta u xaqiijiyay in la daweynayo. Ra'iisul Wasaaraha Ruushka Mr. Mishustin ayaa isagana laga helay coronavirus 2 toddobaad ka hor, iyada oo sidoo kale wasiirka dhaqanka iyo warshadaha dalka Ruushka laga helay cudurka coronavirus. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ku dhawaaqay dabciin dhinaca bandowga ah oo horay uu ugu soo rogay iyadoo shaqaalaha ay dib ugu laabteen xarumahooda. Dhinaca kale dab ka kacay isbitaal ku yaala magaalada labaad ee ugu weyn dalka Ruushka St. Petersburg ayaa waxaa ku dhintay 5 ruux oo cudurka coronavirus soo ritay.